inuu jacayl hayay in kale waxaan ku ogaanayaa marka ma la dhihi karaa in la isu soo xiisaa wanaagsan mise waxa la dhihi karaa jacaylku wuxuu ku dhismi karaa in mar walba la wada xiriiro يعني dadka qaar waxa jira dad yani waqti lumis uun jacaylka iyo xiriirka u sameeyaa jirmaano soo waxa weydii yani taas waxay tahay yani sidee lagu ogaanayaa qof jacayl qof kale tee in jacaylku haayo waxa ugu fudud ee aad ku dareemi karto oo na garaaca saayidka waxaan dareemaynaa laftarkaaga waa lagu qabaa laba filaan maadaama aad jacayl ka hadlaysid ninka adiga ku qaba inuu saddex kala guurso horta ma ogashahay oo mislaada guurso horta waxaan aaminsanahay aniga oo iga dhaadhacsan waxay tahay nin aniga haysta inuu sanaa kala u baahnayn haddii ayba dhacdana inaysan naa gurigayga duminayn oo intaan ninkayga uga taga aniga aanan beelaha tegin taana waa aaminsanahay oo wax meesha ku jira waaye marka hadduu maaragtay iibaandaroodo is yidhaahdo 2 iyo 3 kala u baahan tahay waa la dhisayaa waa mahadsantiin waan aaminsanahay horta jacaylku wax jira inuu yahay oo hadduu jacayl jiri lahaynba waxa weeyaan diinteennu isguursada namaysa tirahdeen diinteenana faraysa macaanka badan la isguursado oo dumarkeenna iyo la isjeclaado laakiin su'aashan qabo macluumaadii wadina waxay tahay maadaama diinteennu tiri qofka dumarka hal nin ba guursan kara ragguna waxay guursan karaan 4 oo diintu noo sheegtay macnaha ninka ragga ah ila diinta kama aqli badin anaga ninka ragga 4 loo baneeyay soo diinta uma banayno 4 macnaha jacayl oo qaadi karo koow adiga maxaa ka aaminsan taas waxaan dareemaynaa laftarkaaga waa lagu qabaa laba filaan maadaama aad jacayl ka hadlaysid ninka adiga ku qaba inuu saddex kala guurso horta ma ogashahay oo mislaada guurso oo waxa ka qabta jacaylka noocaasa caaw nala wadaag taas su'aal weeye waxa gabdhaha ay daaranayo maxay tahay nin saaxiibkii maxamed bashiir magan liyaa xaga fadhiya wuxuu yiri suleekhada laftirkeeda ma la qabaa buu yiri isoo weydiiyay su'aasheedu waxa weeyaan ragga iyo dumarka kuwa badan asxaab waxaan isku qabanay labada qof oo isdoonaya ama isdanaynaya dhankeebuu ka imaanayaa sheegashada jacaylka waxay leeyihiin gabadha waxay leedahay inay gabadhu sheegato jacaylka oo ninka u sheegato waa daciifnimo waa laga fiican yahay kumana habboona ninka inuu la yimaadaa bay leedahay ninka Soomaaliga hadii wax loo sheegto oo ku jecel la yiraahdan waxay leedahay uu isqalqaadaya balaayo iska dhigaya marka arinka maxaa ka jira keebay ku habboon tahay inuu dareenka soo gudbiyo oo marka hore uu soo sheegto maqla jiray mudug dhacdaga su'aal adag ku darsadeen intaas waa kaftan Abdiraxmaan u dambeeya hormarinaya sideedaba dareenka jacaylka ama rabitaanka ama ka helitaanka ku doon ha ahaadee sheegasho markii la yiraahdo qofku hayo inuu sheegto way ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado laakiin waxa lagu kala duwan yahay hanaanka sheegashada waaye buugan laftirkiisa sheekada cida ay daaran tahay waxa way gabar iyada wax jeclaatay waliba macalinkeedii jeclaatay marka yaani in dumarku wax jeclaadaan oo iyagu maaragtay dareenku dhankooda ka yimaado inuu ragga wax jeclaado oo ragga dhankooda ka yimaado labadaba waxaan isleeyahay ani wax diiday ma jirto laakiin hanaanka de dumarku wax u sheegtaan iyo hanaanka ragga wax u sheegtaan kala duwan oo de raggu siday u dhiiran yihiin oo u soo hableeyeen oo maaragtay iska dhaaf jacayl haduu ka helo aadan maaragtay uga nasaneenin gabadhu uma dhiiran karto oo gabdho badan baa waxa laga yaabaa dhowr sano inay maaragtay baalka dilaaga ah la aamusnaayeen marka waxa lagu kala duwan yahay hanaanka waaye yaa habboon haday tahana de haboonaashu qofka dareenka qasab ma wiilka adiga aad jeclaatay inuu ku jeclaado sida gabadha aad jeclaato baysan qasab ahayn inay ku jeclaato marka waxaan isleeyahay anigu mar walba horta jawaabtu waa mid koowaad talabaad hanaanka uun bis waxaan jeclaan lahaa inaan dhiirigeliyo gabdhaha wax jeclaaday maaragtay dareenku ayaga dhankooda ka bilowday
in gabdhaha kale ama dadka kale ku hareereysan ee saaxiibada dhadhow ah inay garab ku siiyaan qofkaas sida maaragtay uu dareenkiisa maxaa la yiraahdaa uusan ugu dhex dhiman lahayn sababtoo ah dumarku ilaa xad runtii waa ay ku dulman yihiin waana ay ku dhib qabaan marka dareenka dhankooda ka imaado midda ah inay raggu aysan maxaa la yiraahdaa jeclayn ama ay ka faa'iideystaan taa waxaan isleeyahay mid loo siman yahay waaye oo bini'aadamka oo dhan baa marka qaadqaadka iyo qalbi wanaagga iyo wax qurux badan oo tiro beel ah la hordhigo kibir ka qaada marka ani mid ma qababa yacni inaad dareenka isku dulayso ma qabo haddii aad arkayso qofkan dareenka aad u himeynayso inaysan agtiisa qiimo ku lahayn tubadan faraheeda adaa hayo waa xiran kartaa yacni dhibka iyo waxa yarkaaga markaas aamiraysid waxaa runtii ka qiyam iyo qiimo badan inaad naftaada quruxdeeda sharafteeda badbaadadeeda iyo jiritaankeedaba aad ku dadaasho marka gabdho way dhib badan yihiin hala dhiirageliyo sidoo kale astaamaha jira gabdhaha waxay ku muujiyaan oo gabadha aad dareemayso inay maaragtay salaanta kugu soo badiso kaa warhayso oo su-aalaha guurka iyo arrimaha la xiriira ku weydiinayso dhankeeda waxbaa jira wiilasha qiskaasaan sii siinaya kasii warhaya waa mahadsantiin walaalkay shariif maxamed saal wuu mahadsan yahay runtii su-aalo aad culeyskooda weliba midda ugu dambeysa ay ugu adag tahay buu maaragtay dusha ii saaray tii magan baan ka bilaabayaa sulaaqa waa la qabaa gabar kale oo maaragtay ka khayr badan allah ku saalo taas halkaas uga baxaya laakiin waxaan kuu sheegayaa sulaaqayaal badan baa joogo haddaad nin hore u socdo tahay ee ayaga ka faa'iidayso muxuu ahaaye tii ahayd jacaylka afarta xaas horta diinta laftirkeeda waa lagu sheegay inuusan qalbiga qaybsamin nabiyullaahi maxamed oo ah tusaalaha ama hoga tusaalaha ugu sarreeya ee qof kasta oo muslim ah maaragtay uu u yahay tusaale u yahay baa maaragtay caddeeyey oo maaragtay waxaan isleeyahay maanta inkastoo dee taafadooda liiga si fiican yahay oo su-aalaha qaar diini noqonayaan oo culimmada in la weydiiyey ay ku habboon tahay haddana ragga waxaa la faray cadaaladda waaye qalbigu dee cadaalad lagama samayn karo oo yacni ma jiro qalbi 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 u qaybsama ma jiro qalbigu waa mid ilaahay afarta u calfo ama maaragtay u qadaro buuna maaragtay maxaa la yiraahdaa ku beermaysa laakiin waxa la rabo waxa waaye waa jecelahay tan baa 4 habeen la seexanaya taasna hal habeen la seexanaya sax ma waan jecelahay tan baa waxa ugu fiican siinaya kuwa kalena maxaa la yiraahdaa wixii ka soo haran siinaya sax maaha ragga waxa la faray waa cadaaladda marka haddii aydan cadaalad samayn karin oo aydan maaragtay qalbiga cidna idin kuma haysatee sida kale iyo nolosha kale iyo mas'uuliyadda kale aydan xambaari karin waxa fiican halkiina inaad maaragtay iimaansataan oo iyada aad ag dhigataan haddii kalena dee wax walbo diinteena ku caddahay in diinta inta la barto dumarka loo cadaalad sameeyo ayaan runtii sii dhiirigelinayaa kuna adkeenaya laakiin uun taasaan ka leeyahay ma jiro wuu muujin karaa qofka maaragtay dee inaad qofkan u muujiso dareenkii ilaahay kugu beeray qasbayba in maaragtay afarta lagugu baneeyay aad isku daydo inaad wax ku xalisato adigii raganimadaada laakiin qalbigu ma qaybsamo